السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دي سلامي دمان أصحابته كحرن جنال كنا سود وهذا عشر كنا ما أنتوا حكوا سابسين جاي وحاورت إنه صعدة check mate باتنسكي عشر كنا مركا وحكوا سابسين جاي botanist mate و check mate botanist that demonstrates the power of two bishops on open diagonal. botanist mate وحي cadaynaysaa awoodda ay leedahay ay leeyihiin laba bishop markay open diagonal u jiro sida hadda falaarta ku muuqato diagonal waxa lagu wadaa xariiqa geesgeeska ay sidaas oo kale ayaa waxa la yiraahdaa diagonal markay open diagonal ay tahay oo diagonal furan uu yahay ayaa markaas awoodda bishopska ay soo baxaan waxaana lagu magacaabaa checkmate-ka noocan oo kale markuu dhaco botanist mate. haddaba marka leges ayaan gelaynaa oo waxaan ku dhufanaynaa inta akhri waxaan kaliya oon samaynaynaa waa botanist mate. haddaba marka fiiri marka waan kuu sheegay mogtahay conceptiga waan kuu sheegay example koobaadaan ku siiyey hadda adigoo marka waxaa la rabaa in adigoonan aan mataqaanaa dheelin waa inay sawir cad aadaystaa waxa dhici doono dhan ciyaarta tusaale ahaan fiiri hadda waxaan samaynaynaa sacrifice the ruugan ayaan waxaan ku dhufan doonaa fardahan markii aan ku dhufanno boqorka marka waa inuu action sameeyaa saddexdii actionadii oo ka badbaadinayay checkmate-ka waxay ahaayeen lambar 1 inuu escape sameeyo oo boqorkan u ordo ma ordi karo bishopkan ayaa u diiday intana asxaabtiisa ka xigto kuma ordi karo haddaba maxaa u furan marka protection in laga hortago xubin kale haddii meelahan taalla ay hor imaado halkaas imaado iyadana ma jirto xubin hor protection sameeysa midda saddexaad oo ah in capture oo la dilo marka askarigaas ayaa dili karo marka ay ka dhigan tahay askarigaas ayaa dili karo kabacdi marka botanist mate soo xasuusta waxay ahayd waa demonstrate that the power of two bishops on open diagonalka uu furmaa markaas bishopkan cad wuxuu awood u leeyahay halkaas inuu tago oo checkmate uu ku sameeyo sababtoo meel uu dhaqaaqa ma lahan check waa qasab askariga inuu dilo then checkmate waa example-ka koobaad. haddaba midkan labaad aan fiirino midkan labaadna waa iska caddahay oo horta intaanan samaynin hal mar fakir oo ka fakar waxaa dhici karo sidee ayaan ku samayn karaa botanist mate sidaan ku samayn karaa marka botanist mate waxaan ku samayn karaa queen sacrifice sameeyo queentan inaan sacrifice ku sameeyo oon askarigan ku dilo sababtoo waxaa dhacaya open diagonal laakiin mar walba open diagonal haddaa aragta ha iska ordino haddii xubin ay meeshan qaban karto dee open diagonal way tahay laakiinse botanist mate ma noqonayso adiga ayaa xubin iska khasaarisay hadda cid ka hortagta ma lahan meeshan. okay example-ka saddexaad aan fiirino example-ka saddexaadna iyadana waa rook sacrifice waan ku dhufin doonaa then wuu dilayaa open diagonal ayaa dhici doona waa geeskii kale unbaa loo wareejiyey. okay example-kan afraad sideen ku samayn karnaa uma baahna iyada wax sacrifice check haddaan dhaho meel uu aado ma lahan. okay example-kan kale two bishops ka fiiri then sacrifice the rook and checkmate. okay markaan waxaan samayn doonaa dhowr example sharaxaad waad fahanteen waa easy ilaa iyo example dhowraa samayn doonaa marka la daawado.
haddaba exambalada halkaas ayaan ku joojinaynaa waan idin salaamay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu janaalkana subscribe hala saaro hala dhiirigeliyo share ha lagu sameeyo